رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu xilkiga ka qaaday wasiirka diinta iyo waqaafta sidoo kalena waxa uu wareegta ku magacaabay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicaziz Abdullaahi Riyali ayaa warkan inoo soo diray رئيسul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Iman Abdullahi Ali wareegta ka soo baxday xafiiska raiisul wasaaraha ayaa xilka looga qaaday wasiirka ayadoo aan la shaacin sababaha dhabta xilka qaadistiisa waa markii ugu horeysay ee raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xilka qaadis uu ku sameeyo xubin ka tirsan golihiisa wasiirada xilli bil gudaheed laba wasiir shaqada ay isaga tageen taasi oo aan si cad loo sababin waxyaabihii ay ku baxeen dhanka kale dikreete ka soo baxday xafiiska raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu magacaabay Maxamed Mursal inuu noqdo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga isagoo buuxinaya xilkii uu baneeyay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo 12kii bishii Oktoobar xilka isaga tagay raiisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa saacadihii la soo dhaafay wuxuu waday la tashiyo dhanka madaxweynaha iyo qaybaha kala duwan ee Koonfur Galbeed ku aadan waxaana sidoo kale qayb ka ah in uu iminka wareegtadaasi soo saaro safarkii uu ku tagay magaalada Baydhabo halkaas uu kulan la yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Maxamed Mursal waxaa lagu xusuustaa inuu noqday wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumaddii hore waana safiirkii ugu horeeyay ee tan iyo burburkii dowladda Turkiga dowladda Soomaaliya ay u magacawday Cabdicaziz Abdullaahi Maxamed Cabdicaziz Somali Cable magaalada Muqdisho